gobolkeena Hareer iyo Hargeysa toddobaadkane muddo aad u dheer ayaa waxa la rumaysnaa in gobolka Sanaag ay ku nool yihiin qaar ka mid ah dadka ugu cimriga dheer ee Soomaalidu arrintaasi haddaba maxaa ka jira dhawaan markii aan tagay magaalada Ceerigaabo ayaan u kuurgalay arrintaasi waxaana halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah dadka cimrigooda uu Ilaahay dheereeyay ee ku nool magaalada Ceerigaabo waraysiyadiina dhex marayna waxay u dhaceen sidan halka waxay la fadhiyo odayaal fara badan oo kamida ragga odayaasha ee magaalada Ceerigaabo ku nool adar magaca adiga Abdullaahi Xaaj Faarax Abdullaahi Masjid ma taado 5 waa taadar adiga magaca aadan maxamed aadan imsajir ma tahay awaadan adiguna 84 waa tahay ninka odayga kale ku xigaan imkana eegay adar magaca عبدو أدينا دادو إمسات شرتا سغاشن وات سغاشن كم حبا كودير بس حبا كدمن اسكيبو حبا نمالينيا ما شاء الله وي أدينا هذا محمد أدينا دادو إمسات كو قياسيسا واتي لبي ستيتن marka waa qiyaasun 3 state afar state meelahan wad noqon kartaa iyo state waatay adigana Abdullaahi waatay Abdullaahi imshir ma taado adoo ragga kale wad ka yartaan malaynaya anigu waxaan hay 9 nin dhalinyaro taado marka ragga kale loo eego marka la eego qolada haay adiguna adeer anigu waxaan 5 magacaagana Xuseen Xasan Cali ahlo salna adiguna soo adar lama fiicna way Xuseen daadada imsad ku qiyaas adiguna 5 waatay laakiin ragga daadoodu ay 100 ka gaadhay ee magaalada ku nool imsa lagu qiyaasaya ma badna rajana way وحير باتشيلكا وحير بكاري تشيلكا لما كان سيقو بتغيا بقول هاي ان واتي دادا وين ilaahay ba cimriga haye dadku ay gaaraan magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag waxa loo tirinayaa bay kula tahay hadana adigu weydii daadaa weyn ha waxa baadku waana qabowyahay cunaladsuna waa gooni haay siyaasadda iyo musiibada lagu wareeray iyo tartanka badan oo ka baxo dhaqataan oo ka madax banaanahay haay hadiirun bahabarkaasuna soo galay way marka war la'aan iyo dib la'aan baan cimrigu noogu raadiso way hadeerta waxaan baaragnaa caruurteeda yar inay rooreysto sidii dhamacyadaba isbedel keentay sidaan waxaan jira ka bedelantay inta adigu yiri maxaad ku dar leedahay adiguna waa كغو واي لكننا وناكسر صحله كيف بدل لم يسمع واي وارد دررنا مكيل دررنا وناكسر مركبوا صار كوشي يرانا واطي adigu maxaad u tirin lahayd taa cimriga inta odayaashu soo sheegay waxaan ku dari lahaa haay wax xoolo cunta way waxaana dhan way waa neerfis la'aan aan barobal badan ku kacayn way sidaas aan u tirinayaa cimriga Ilaahay ugu barakeeyay xaq Ilaahay waatay adeer adiga haddaan ku weydiiyo taada shakhsiga maxaad oran lahayd inkastoo cimriga Ilaahay hayo cimriga Ilaahay waa xaqiiqo laakiin xagga taariikhda ma gabowda wayo dadka Sanaag haay وإذا الله شو نقول شكاية قلت عدوا ولا كتها ماشي واي ونحن نوي ما ده بدو غي ما ده وكل بدو غي ما ده حتى نوي ما ده إن الدول وس بتشالون وكولا كلام تنوي ما ده واي حق هوش يا سياسة وكبر لكن ده هوش يا سياسة وصلنا ده ضمون بحيثما لكن dadku inay da weyn gaaraan muddo dheer bay gobolka Sanaag caan ku ahaa Soomaa weeye taas xagga ciid iyo xagga cimilada waa loo keenay dadana Ilaahay ma deeqaya xaqiiq weey
adeer adigu waxaad ka mid tahay ragga ugu daada weyn odayaasha imika halkan fadhiya haddana kaama muuqato 90 jir laguma wado maxaa ugu wacan bay kula tahay mar weeye way siyaaraynayaan waaye waa qodobka u ah haya marka xiga haya iga weyneed daadu haya waxba keena waaye iyadoo aanay kuuba iman waa wax keenaan waaye maxaa keena ama xanuun baa keena ama warwar baa keena waaye ama dee kol dhibaatooyin noocaas mid iska yaroo madax caddaaday haya war maxaa ku dhacay wallaahi waa hawl baa saa uga shalay waaye wallaahi hawl buu la caddaaday ninkaasi daadiisii maaha horta daada waxa keena sidaasaa keentaa waaye waladeedu way siiraynaysaa igama yaryare waatay kolle waa caafimaad xaggi alxamdulilah xagga uruurkana ayaa beryahan dambe ka horo waan ka roonayn aad baan uga roonayn wax werwer oo beryahan dambe waxa soo kordhay waa markaa xaggiinaasay naga yimaadeen waaye xaggiina haya adeer waxaan u malaynayaa ragga deedahaan ku soo xiguun baa tay inkastoo odaygu iyo ragga kale waa siiraynayaan adigu intaa odayaashu yahaan maxaad ku darilay sheekh anigu haya waxba garan maayo waaye daadaan joogana waa kuu sheegay waaye 84 baan kuu sheegay waaye waxna dheeraysiin maayo anigu waxna ka dhimi maayo haya sidaan maxaysnahay waaye ha yeeshee maanta dee anigu da'da aan joogo habar gabadheediyo isruxaysa aragto guur u diyaara ayaa u yeedhay waxay tihi gabadh yahay soo waxaad isla ruuxaysaa inaad guursato oo meel degto oo haddii aad marwo noqoto oo reer yeelato maaha ay tihi dee haa markaasay tihi haddaba waa kuu dardaarmayaa daryaanankayga iga dhigayso raggu waa lixdo miduu maad la kulmi doontaa isku dhaqan maaha lixdu midba sidaad oo dhaqantaa baan kuu sii sheegayaa ee adkayso raggu waa 20 jir 30 jir 40 jir 50 jir 60 jir 70 jir raggu waa lixdaa miduu maad la kulmi 20 jir haddaad la kulanto waa nin waalan inuu ku furo iyo inuu kala tago iyo inuu ku dilo mintaba waa awood karaa adigu ha la waalan haddii aad la waalanto qoysku waa burburaya isdaji waa tay 30 jir waa santaag badan yahay oo waa daac badan yahay oo waa kibir badan yahay soo maqli maysid haya gaahede soorta adii keenta xuma oo waa soo qurmoone oo waaba qurutaye oo maxaa uraya namalaadaaba uraya hayso dhan waa ku caayaaye meeshii buu marayaaye nadiif ogow haya 40 jir nabarkiisa duxa hadduu ku laadiyo hadduu ku feedho iyo hadduu ku dharbaaxo iyo hadduu ku dhifto meeshii ay kugu dhifto waa ku jabaysaa ama waadba u dhimanaysaa ninka rax saaro yeelay waa yahay wuxuu allaale wuxuu ka cadhooday kugu dilo gacantiisa iska ilaali konton jir xijala xun yahay kan reerka yagaalo kan anaalo kan baadaan kan ka yimi waxa hoosta ka calaamad reerka hoosta kala soo dusha waxaad ka tiraahdaa reerka odaygaale haya waaya kana saasaad kula dhaqmaysaa 60 jir jirkiisu wax ka tabayo naftiisaba waa hinaase ninkula taageer iska ogow waa tay 70 jir baday guriga meel xun la dhigay gaagtaas ay rogtay ordayga taga meel dheer waa dabayl sidaa u soconaysa hadalkiisu haya waxba kama jiraan reerka adaa ka sarkaala nuuriga ugu roorow waa tay 70 jirka aniga kama sarreeyo bay tiri 70 jir cidi kama hooseyso wixii la jirka hooseyna waa carruur 70 jir waa dhaqaaq sharabi baan maraynaa habarku sheegtay qalqaan way dhigaysaa aad iyo aad baad mahadsantay sanadadan dambe dhinacii nolosha dadka maxaa iska bedelay baad oran leedahay aduu raggaa hore waxaa la sheegay in deegaanka ay wax badan ka saarayaan dee cimrigaa weyne ay gaari jireen sanadadan dambe taa wax ma iska bedeleen waaye waxba iska bedelay waaye waxay iska bedeleen waa fikir waaye fikirkii waa ku batay anagu daadaydaa raggii hore markuu joogi jiray dhallinyaru ahaa ragga duula buu ahaado weerarka tago dulada waxaya waaye waxaa iska bedelay fikir baa ku soo kordhay
دكتور عبد الله عبد الدلمر waxa uu kamid yahay dhakhaatiirta ka shaqeeya magaaladan Ceyrgaabo marka laga hadlayo dhinaca daada gobolka Sanaag sidii imkaan soo aragnay waxa lagu tilmaamaa inuu yahay gobolada dadku cimrigoodu uu gaaro daad weyn dhinaca caafimaadka markaynu eegno maadaama gobolka aad ka shaqeysid maxaad arinta faahfaahin naga siin karaysaa markaan anigu eego qiyaasaan horta cimriga Ilaahay baa bixiya waa xaqiiq oo wax markuu afar bilood qof ku jiro la qoro weey balse waxyaalo joogtay jira waxyaalaha joogtay waxa kamid ah waan filayaa gobolkan keenay horta wax hawada waa kuwaad sidoo kale resource waa tay oo qani ku yahay haddii ahaan lahayd xeebihii haddii ahaan lahayd oo kalluunka laga helayo ahaan lahayd beerihii oo khudrad badan laga helayo haddii ahaan lahayd cadkii oo deejeenigii xoolihii oo iyagana laga helayo waxyaalahaas ayaan filayaa in oo qofkii hadduu cunto ku filan qaato waxa iman karaysa inuu xaaladiisu noqoto mid naftiisu ay joogto noqoto muxuu muuqataa sanadadan dambe دكتور عبد الله انت wax iska bedelayaan mise dadka noloshoodu waa sidii hore way isbedelu jiraa isbedelka jirana waxaan u aanaynayaa kulli de cimilada adduunka dhawaad isbedeshay xoolihi waa isbedelay wax walba isbedelay marka kulli isbedelka jira kulli saameyn buu ku yeelanaya sanfilayo oo hadda dadku waxaad moodaaba hadda xanuunada ku soo badanaya gobolka oo kale 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ma jirin maxaa kamid xanuunada waxa kamid ah stroke oo ah faaliga macaanka iyo waxa kale oo kamid ah xanuunadan rheumatismka iyaguna waa kamid waxyaalaha ugu badan ee hadda lagu soo kordhay iyo dhiikarka dhinaca waad sheegtay oo waxa tiri waa waxyaabo fara badan oo nolosha bini'aadamka u wanaagsan ayaa gobolkan laga helaa laakiin markay noqoto habka dadku ay u nool yihiin tusaale ahaan dhinaca jimicsiga oo kale inay beero qotaan inay dee xoolo raacaan dhinaca miya wax laga saari karaa tan dadka cimrigoodu aadka u weeyay waa runhaa hadda jimicsiga oo kale cagta furani waxay ka qayb qaadataa cimrigu inuu yaro kordho haddii deelaha uu qadaro way ka qayb qaadataa cuntada oo kale la fahanteeda qaybo badan bay ku yeelanaysaa dadka wareermiyay u badnaayeen gobolkan xoolo dhaqato u badnaa xoolo dhaqato maadaama u badnaana waxay iman karaysay in qofku maalintii 5 ilaa 10 kiiloomitir ilaa 15 kiiloomitir u soconayay marka waxa la yiraahdaa hadduu qofku maalintii 5 kiiloomitir socdo exercise ku filan ayuu helay وهاجاك بيرتنا مكيدين موقتها أن دحجوجا وحوي بيرتي ولها إلهي نحرست جنها كورابية أبوان كوينا حاج هذا أفقلع إن حاج هذا الناس ضد فربنا يكور هياهم وحل قياسي يعني مركي ولنتي دادي سواهد بقول يتضبي يسد شر وحنا وكم إذا هذا كوجو عمر قدر جودهم بس هم على ده قارهنا قبل كان سراق